geystay qof kuu dhow ama aad jeceshahay noqo mid leh qalbi awood badan hana danaynin hadal laga dhahay agtaada ama gadaashaadaba oo yuusan ku saamayn kana soco ha kaa faalloodaan wax magaratadaye maxaa yeelay qofka la duraya oo wax ka sheegaya haddii uu caqli u sugnaan lahaa isaga ayaa tiisa ku mashquuli lahaa adigu waxaad ku sugan tahay zaman iyo wakhti aysan boos ku lahayn kuwa daciifka ah ee jilicsan ee noqo mid awood badan ha noqonin mid jilicsan oo daciif ah yacnii tabardaran cashir ka bara xaalad walboo ku dhaawacda iyo xaalad walboo kugu soo marta noloshani kana yeel caqabadaha kuwa kuu noqda khibrad aad kaga gudubto waayaha iyo safarrada noloshaada si fudud kalsoonidaada cidnaha ku siinin hana u malaynin dhammaan inay leeyihiin qalbi saafi ah oo kaaga ka shabbaha wanaagga iyo daacadnimada qaar baa kuu dhoola caddeeya ayaga oo ku hanweyn oo mar walba ku fikiraya goortay kaa ridi lahaayeen jar iyo haadaan ama ay ku dullayn lahaayeen noqo oo u muuqo mid leh qalbi awood badan marka aad la joogtid kuwa ku khiyaano ee ku dhagraa noqo mid leh qalbi awood badan marka aad ku jirto xidhiiro xanuun badan oo ku qalbi jebinaya hana qalbi jebin oo ha u muujin cadowgaaga inaad tahay mid daciif ah hana ka yeelin wejigaaga quruxda badan ee dhoola caddaynaya mid ay murugo geliyaan waayaha qaraar ee nolosha hana ka yeelin wejigaaga quruxda badan inay beddelaan shakhsiyaadka qaar oy ciwaan iyo dabeecad u tahay inay dadka murugo geliyaan hana ka yeelin indhahaaga bad ilin ah kuwa ay ka socdaan ilaa inay ilintaasi wa timaaddo si farxad ah mooye qalbigaagana in yaroo murugo ah ugaga dhex tegin sababta kelimad ama dhaqamadooda doqonnimada ah oo ay kuu geysteen dadka xun noqo mid leh qalbi awood badan si gaar ah ilbiriqsiga tiiraanyada iyo qalbijabka wajahna duruufaha qallafsan ee nolosha oo u dhabar adayg walaalkayow inshaa allah waxaana hortaada ah nolol ka sameeya sareedo qurxoon tanaad hadda ku sugan tahay kana masax qaamuuska noloshaada hadallada quusta ah iyo dadka rajaxumada oo keliya arka ku beddel naquusta iyo tiiraanyada hadallo ku dhiirigelinaya iyo dad kugu odhanaya horay u soco oo dhaqaaqoo ha joogsan ilaa aad ka gaarto yoolkaaga walaalkayow ama walaashayey adduunyadani ku noqo mid adag maxaa yeelay noloshu ma aqbasho kuwa jilicsane ku noqo mid adag duruufaha u dhacaya sida duufaannada daran oo kale hortooda noqo mid adag oo musiibooyinka u adkaysan kara noqo mid adag waxaa laga yaabaa in zamanka uu kula kulansiiyo waxaadan filanaynin laakiin noqo mid adag maxaa yeelay noloshu ma aqbasho kuwa jilicsane noqo mid adag waxaa laga yaabaa inaad ka baxdo waddankaaga oo aad ka fogaato waddan kalena aad ku noqoto qaxooti oo aadba u xiisa muunfadii ay hooyo ku siin jirtay hase ahaatee noqo mid adag maxaa yeelay noloshu ma aqbasho kuwa ducafada ah ee jilicsan ku dheh kuwa suganaya geeridaada iyo inaad hoos u dhacdo waxba ha ii sii diyaarin kafantayda qof waliba wuxuu ku dhimanayaa ajashiise aniguna intaan nool ahay ma noqonayo mid daciif ah maxaa yeelay noloshu ma aqbasho kuwa ducafada ah waxaad arkaysaa naftaada oo keli ku ah noloshan adduunyo oo ay hareerahaaguna ka maran yihiin saaxiib walaal iyo waalidba waxaadna keligaa la dagaalamaysaa mawjadaha adag ee nolosha mar kastana xasuusnow hadalka rabbigaaga ee ah واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ku samir xukunka rabbiga annagaa ku ilaalinayne kuna tasbiixso oo ku mahdi rabbiga markaad kici habeenka qaarkiisana tuko